بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية شيخ دكتور حسن شيخ محمود، وزيرك تعلينتا وزير فارح، ووزيرك madaxtooyada wasiir sheekh Umar Bukhari, wasiir xigeenka wasaaradda awqaafta iyo dhammaan wasiirada kale. waliba yaanaan halmaamin lama sheegin wasiirkii aniga wasaaraddan hadda joogo ugu wareejiyay sheekh wasiir Umar Ali Rooble iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha diinta iyo awqaafta Sheekh Ali oo hadda hadlo runtii kelimo xaq oo dhab ahna sheegay aan aad ugu raacsanahay. dhammaantiina qof walba madaxda culimada amniga saxaafadda cid kastoo joogto waxaan ku qadarinaynaa kuna salaamayna mansabka iyo magaca ay meesha ku fadhiyaan ay mudan yihiin. jazaakumullahu khayr. anigu waxba badan sheegi maaye waad maqlayseen sheekh qorana wuxuu yiri madaxweynuhu ku soo dhaweynaya waxa kale sheegi maaye madaxweynahan soo dhaweynaya. waxaad ogtihiin runtii shirkan culimada horta waan u mahadcelinaynaa, wasiir xigeenkan waan u mahadceliyay. runtii waa wax aad loogu farxo, dal iyo dibadna isaga timaadeen, la idin yeeroodna ajiibteen. hadda la sheegay shirkan min awwalihi ila aakhirihi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ricaayeynayay, maalgelinayay, ra'yigiisa ay ahayd, juhdigiisa ay ahayd, habeen walba iyo maalin walba nalahaa xagee maraya waa la soo daahdeen. madaxweyne shirkii waa fadhidaa maanta. waxaan ka baqaynay inuu naga umul raacee wax yimid oo waa dhashay bixamdillaahi tacaala. inuu dhashana wax fiican ay ka soo dhashaanna waan rajaynaynaa. culimada aad baan ugu mahadcelinaynaa. madaxweynahana juhdigu galay waan isaguna uga mahadcelinaynaa. ilaahay ha barakeeyo. runtii ra'yigaas isaga laha. waxaan isleeyahay waad ogtihiin oo saaka waqti hore la yimid, culimada raalli ahaadaan leeyahay. kulli madaxweynuhuna sulxigu ku maqnaayo koonfur galbeed buu jiro, waad ogeydeen. sulxigana culimaad ogtihiin oo waad garanaysaa nabiga jamaacada salaaduu tujin jiray ayuu uga baaqday Soomaa, uga soo daahay. marka tii oo kale bay ahayd, taas ku raalli ahaada. madaxweynahan isagoo runtii daalan oo saacadan socdo in uu gurigiisa u dhaafin oo madaxtooyada xafiiskiisa aanu gelin oo airport intuu ka soo baxay idin yimid, iyadana waad u jeedaan. runtii madaxweyne waxaan leeyahay fursad fiican baa jirta. ra'yigaagii culimadu ku ajiibay waa kuwa kula joogo. waxaan rajaynaynaa wax fiican oo wax ku olaho taariikhda gala inay sajili doonaan. waxaan isleeyahay wax la isla waayay hadda ka hor madaxweyne ayaa isu yimid oo la isla helay. madaxweyne dhahaya aawe culimadii ii soo raadiya. culimadii oo dal iyo dibad inta laga wacay madaxweynaha idin wacaa markii la yiri si dhaqsaa u soo ajiibay oo hore ka yimid, iyagoo saakay 3 saac intay meeshan soo fariisteen madaxweynahoodii ku sugayay kuna qanacsan. waxaan isleeyahay wax hadda ka hor la isla waayaa kulmay. ilaahay ha noo barakeeyo. nin Soomaaliyeed baa hadda ka hor yiri godbuuha igaala oo irmaan ee wal isla waayay. godko buuha iyo geel iyo irmaana ayaa la isla waayu yiri. hadda waxaan isleeyahay labadii oo la isla helay madaxweyne ku soo dhawow.